magaalo madaxda gobolka Boqol ee Xudur wayba lagu dareemayo horumar dhinaca kaabayaalka iyo adeegyada bulshada iyo intiyo badan iyo hakanagadeen jawiisho caadiga inkastoo ay martii degmada Xudur ee gobolka Boqol marxalado shal duwan oo dadkan ilaa iyo hadda maskantiyo aan ku saarna ayaa hadda wayba ay cagta saartay jidkii horumarka iyo dadka ku nool iyo ka heliyaan in si isku mid ah wada shaqeeyaan nabadda iyo horumarka iyo garab ku helo dawladda koonfur galbeed ee uu soo gaamiyo madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen kana wala soo biidoonay baahidii shacabka Xudur iyo nawarsadeen yaa ku jawaabi doona hatana wali dhagax dhigi doonay mashaariic kale cusub oo ka muhiimsan iskool iyo xarumihii dawladda ka shaqeeyaasi iyo dhagax dhigi doona haan uma hata suubini oo dhamaayna hata la fari doono insha Allah Ogamiyo, agajiyo, asiliyo, ureyoki, ofur kalbeda enta. Isa ije, anshabi farhat, harsamo laftagare mutu akadawa. Adawa madawino, adawa ogamiyo, agajiyo, asiliyo, ureyoki, kofur galbeda enta. Isa ije, anshabi farhat, harsamo laftagare mudud akadawa. madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo muddadii uu xil ka hayay muddo badan uu sakanagnagadii guud ahaan gobolka Boqol gaar ahaan xarunta gobolka ee Xudur saasaatoona uu shiidhi ku suubi mashaariic horumarineed oo iyo malaayiin beese iyo kubaddi iyo dhammaantii uu saddex ku wada rogay toddobaadkan oo soo booqday xarunta gobolkaas Boqol ee Xudur kureeta bageliyowkii iyo daafurka mashaariicda horumarineed iyo dhammaan qaybo bulshada ka dhaqan gobolka Boqol si diiran ku daway hannaanka maamul ee madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen iyo horumarada shal duwan ee uu ku suubi degmada Xudur jooga horumar badan yalla ka suubi isbooyin badan la suubi wadooyin la guriyan la madaxtooyin la maxkamadda yalla ka suubi madaxweynaha koonfur galbeed eediyada aldadaali degmada Xudur horumar wiiga deerti adduunyo bahajuusta ka kooyana walbada loo kudhana magna isku jiraan markii alla xaaladda Xudur ana ka jaro eediyada ya horumariga ka deeri intii soogaay dhagax dhafi intii la ka darsadii dadka reer Xudur ila dadaale waliba kumadaha dhalinyarada oo madaxweynaha qoyobka eediyada faraxsana waliba jaraanaha mashruuciyaal oo Xudur qabadi hada saddex mashruuc amal sayka oo isu dhagax dhigay jaraan maxkamadda suuqa xoolaha iyo meelo oo nabad sugida والمركب فريتان شو نحن قطيب قالي ولي بعدين إني بلن قاعدين ميل أو إسكول أو بلانتين صادق أنا حتى قدر إذا كمان مدحوينا ميل رايدنا أو كسدنا جوالك أو بقال مرر بلن حباقة إذا أنا markiin ka horeeyay oo madaxweyne oo meel raayis dawlad goboleed koonfur galbeed degmada Xudur ninka gooyo mashaariicin dhagax dhakaw mashaariic kalena la furo horta kalma araga jarna meel raayis horna ma aragna madaxweynaha intii ku mashaariic dhagax dhakaw masfuro wal shiil dhakaw wal meel dhagax dhakaw email la furo bahatan in goolay taasna bulshada reer Xudur ee dhammaan reer koonfur galbeed namar qaatinin ku hayeen markii ma maleeyay mashaariicda hatta oo shalay maxkamadda hayti geeku horeeyay xamsuubu xoolahay nabad sugid la fure hatta ma idhamana guriga madaxtooyada ya dhamaan siin la furo doon ma maleeyay intii aad mashruucii tumisiyada ya maleeyay intii aad oo hatta madaxweyne Cabdicasiis dhagax dhaki waan uslay furahay
يا مددي حلقتنا أو ساتروي حلقتنا مدته مشيت مشروع أو حلقتنا قدامتي خضر لك سماي هو باللنجيبي ما ينقدرش باللبا حل مشروع إيه كبرنا أنت اللي فليها وما إلى رئيس مدن تعسير ما يكون سياسة ثم ده هنا أنكو جهنت أنتي سدد خير كونفور قلبي إجارهان خير قبل كبكول إيه خاصة دقمة خضر با وسكو جهنت أنتي سوال بدن جوده حال ما مشاريع بدن كسوين وان إذا ديله فيلا رجعين حال كنسن نينكوريتي بكو أرجني ولا يهوا أو ما إلى رئيس أركورنا ما إلى رئيس دولة يحايسن أركورنا هرتي والما إلى رئيس أو مجاويال يا حينا ماله لكن هتو والله هو دولة مدحوين له قالوا وزير له بلشدة يكون فكرة أسو غليرة يكون فكرة أسو ما إلى رئيس يحايسنا مدحوين الدعاء أو ما إلى رئيس ديجان كانوا ولا نقود فضاونا حايسنا ولا نسكو راينا ما ولا ما إلى رئيس عت معناها أنتو كشاق اسكو شاق راينا ما بلشدة رأيرود ضمانتي إيرهر كونفور قلبنا مرقاتين كوين تاسي horumarinta mashaariicda masaxaan dibadhiska warbaan lagu qabadi arintaasna ilaahay mahad iyo shukr leh ku soo kooyba mahadaas ku leh dawladda koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed Kawini iyo tilmaamada ya mahadaas ku leh alxamdulillah marka iyada macnaha meel oo way waatigeek meel wala taabada koro masaxaan meel wala jijay insha Allah way rajaynaa hatana ani oo madaxweynaha maadaama barnaamij badan suubi دولس بدن نكرر لسوبي مشاريع بدن بكرر لسوبي ميربان دقة حدك ميربان داه كوري مركا إن شاء الله هتنجي كجبوها ما حقيقي أنت هواين كيجوين لفظ قبل الشدة هتنا هواين وينا يكونوا الجوال كبكول ما يمرول بهرمود جينا لك دقائق هرمارينات يكون جرد ديجان ك يوجون أنتيجن إنه البنتيو والقوة بدن يدرين جو يصدي يوم رياض سنين دولة كوالات الكونفور كالبيدنين عبري مدحويني haweenkii gobolka Boqol hoobeena iyadoo xaalad adag la ka jari oo bini aadam meel nolol bini aadamka inka koow nabadgeliyadii ariiriga hayti wal iska deeyay in uu la shaqeeyna maamulka ciidamada booliska dhamaan walayba amniga qaabilsan eeda meel raay kaalantaan xeerkan la hadeeri hal geysin iyadoo wajiga madaas la ka jari unayna kala shaqeeyaan waliba ku ibdaadaan haweenka degmada Hudur mashaariic badan lagu soo biisilqaan anaftay gudigaas oo maxkamadda qaraamaadka aruuriyayo ku ibdaaday kuma laha naftay faadamaha meelo uu ku fadhiyaan misaweenku ku fadhiyaan male inta mashaariic la soo bi hay'ad shireedii suuqyada isbitaalka hada fadhi hadii fiisadan oo hada fadhi ka una ka jaban ku madeeyay kan naftiis qaraamaadka aruuriyaa la ka dhasay boqolkiiba 30 EDJ bas inta kale uu wali ku aruuriyay bulshada gudiga sakumadayna kan hukuumadayna ko kale hatin sulma hukuumadayna shantan sano danba wali ogaanay intii wal ordan iska hel dhaanada sulka ka qabsamaan maadaama saasuna ogaanay horumar badan ma hor deegaamada ku jarno mudooyinkan dibanaad kana qaadanaayaan boqolkiiba 80 balaha hukuumadda maamulka degmada Xudur gaar ahaan xafiiska reedan dhisowka magaalada ya iyona dareen joining abri oo ku hadleen baaxadda horumar iyo mashaariicdu sasheedkii madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdicasiis lafta garan isla markaasna uu saaxad la guuleysaday degmada Xudur maalmood roogdeen mashaariic oo horay sanadihii 2009 mashaariicii lagu wadi ya qaar kumadeena xaflad la fadhiyay madaxweynaha harag jar qaar horeeyso harag jari siisi ma soo mashaariickaas hadda kumadeena hatuun roogna ma kumadaha waa mashruuc hata qaar ku inuu hata madaxweynaha in harag jar oo fadhiyay ma kumadaha mashruuc holkan municipality holka ma kale kumadaha new market ama suuq cusub oo lanka tala galay ganacsiga yar yar iniyo markaas ay ka shaqeysada iyadoo markaas oo reedina lanka dhasi dhismo oo yoona kawaanka oo kale oo midnimo project la ka sameey midnimaas oo IOM na runtii maalgeli implement garayti marka mashaariic saan iska jiran qaar kumadeena meel raayeen shaqada ma jare mashaariic kale oo inaga kale USAID-ka tis balaasna soo bidi oo horay meheradaha laki iibiyo hoola ama suuq hoola la gaso waxyaabahaas kumada hayeen markan kulay degmada guud ahaan mashaariicdii inkastoo hata udurkan barnaamijyada oo adduunyada ama saamay gaabna gili sanadkan 2020 waxyaabo badan oo nafaladaani ama ballan qaadeen hay'ado ku shaqaleeyay horumarinta mashaariicda Diblandii laakiin hata 2019 inta asan ka badanayeen
waxyaabihii oo markaas in sheegada degmadan ku faa'iideysatay runtiina eed ma leeyahay in sheegada landasi umuna dab roogni dhismadii iyo sahadownaga wal dhaxgal ama wal dhaxal isla markaasna reer Xudur hadii Ilaahay insha Allah ku faa'iideysan doona mudooyin si dara doona tayadii oo kontroolan inta badan maysul ku duwan sidii hor hankanagada hay adeegyada bulshada ee magaalada Xudur oo ay ku mid yihiin dhismayaasha wadooyinka oo burbursanay muddo dheer goobo caafimaadka shal duban oo muhiim ah in nolol dadka mayna xaqiiqayntiin kooyna madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen dadkii oo weydiisada jareen meelo fog gobolada sida Baydhabo ama Muqdisho kureed dadaalo dheer oo la soobiyay iyo la ka afjari dhibaatooyinkaasi isbitaalka degmada Xudur hadda may baa qorshay isbitaalka maanta degmada Waajirkaala iyo isbitaalka maanta degmada Badkaal oo marno isbitaalkii hore Agost July 2019 wafdo hogaamiyo maartay wasiirka madaxweynaha koonfur galbeed iyo maartay wafdo badan yama barsadeyn maartay Elbert anina maartay wafdigaas ya maartay yaquumadahay meelmay baa markii balanqaad badan oo dhan adeegyada caafimaadka lacag ka suubiyay maartay isbitaalka degmada Elbert shaqaaleysi si shaqeeyahay may bafaday markan in aan gudub maartay horumarada iyo gaardaadka iyo markiilaha unagada may bajare aqabado yar oo maartay dhanuu ku teegin isbitaalka may gobolka may ban lahayn store oo warehouse oo gobolka leeyman amale aqabado una haysada hadii degmadan ay sabalaay ku leedahay degmada kale maartay gudbi korta guud ahaan gobolka maartay store may ban baahan yahay oo store gobol walaalo maartay daawo ee gobolka ka tala galay oo bay dawlad qaade qodobada masheen in store maartay oo degmada oo maartay store kaas marka meel hay degmooyinka kale sabalaayasho lagu sheeno hadii maartay lama diyaar saddex diyaar hadii la sheeno meelada kawmale hadii meelada koo hita banaanka markada dhigdoon maartay wadada almasi lahayd male in marka meel hay isbitaal maartay la helo store weyn oo maartay gobolka la helo horumar kasta oo bulshada ka tilaabsata ama kasta oo ay hana qaadan adeegyada kaabayaalka bulshada may gudbigan ee ammaanka iyo xasiloonida nabadgelyada ee deegaanka maynayo ayna bulshada magaalada Xudur aanu ka siman dhinaga ku shaqeeyo kan nabadda iyo la dagaalanka argagixisada mayna jaran urur dhalinyaro oo ku mid hayna ciidamada xoogga dalka ama han koonfur galbeed ee anteegan la dagaalanka cadowga surun goobo la ku galo magaalada waan ku qayb qaadayaan sugowka ammaanka mayniyo baarayna qof kasta oo hagalow magaalada ama isku bahow baaraw waa walaaladan la baaraayeen oo meeloon bala ka dhawin meedad ko arag yareeleemaan ummadan deerda iska dhamaaymo kuliyeen runtii dhalinyarada deegaankan roogda guud ahaan reer Xudur horta may ku midaysan yihiin sidii ammaanka oo deegaankan runtii iyo may baan sugu fadeen iyo runtii dad voluntary ka shaqeeyo dad oo geeka may baa runtii dhaqaale kala meel ku galaan lahayna ya may baa runtii ma nasxil qaameena in dalkan iyo deegaankan sadana ma aan ka shaqeeyaan iyo qoorseedan dhibaato kasta oo nimankaas cadowga ah iyo hamaleeyayaan si deegaankan ummadan masaakiintan runtii iyaba go'doonka ka jarta haatan dhibaato kala leenka sii jeysana marka taas aan surmeen dhalinyarada guud ahaan oo deegaankan ka sugan siisan qoraytan guud ahaan oo horta keelaya oo biladka la ku galaw masjidka biladka la ku galaw may suruna ururka dhalinyarada ee amniga ya surun magil iblaan ka surunyin walaa hagala walaa ku bahaw iyo baarahay biladkan iyo ku shaqeeyahay lan kasta oo la kaswaay masanayna usub oo deegaankan la ka arga may buu xabsiga leen gudbiyahay iyo haqobdahay iyo hareeyahay iyo runtii aan hubaysanayn ya may ka dhiiradayna lan yoon kasaan oo biladkan rooga hoobiyo ka argan runtii may buu la xiriiraan laamaha ammaanka ilaa may buu lan ka seyti hadus meel fadhiyo laamaha ammaanka leen ku weere hadus dareeroona may buu wal daba gale meel alla meelu seedo may buu yal ku daba seedeen lanki kale iyo sakaran argaana galanto madaas la galay deegaankan guud ahaan mise koonfur galbeed ahaan dareemo kortaan nimankan oo cadowga runtii dhibaato badan deegaankan Soomaali guud ahaan iyo kuwada hayaan oo reer Xudur hoobunan ilaahay noo badbaadi ilaahay runtii may boonin ku gargaari iska duubno oo iska duubno dhalinyarada iyo maamulka iyo dadka bulshada iska duubno la iska duubin runtii aan ku badbaadni tan kale dhalinyaradan oo runtii si voluntary ka shaqeeyasa oo deegaankan dhan ka shaqeeyasa
oo runtii lan hata geeka waalkalka si aan lahayna mar badan ya damaceen nimanka cadowga inay dhibaato jeeysadaan kontrole kumad ya ma ingiliyeen hamiin qarax yan ingiliyeen qarax iyo ingiliyeen intuna siraab meel kooyan ciidanka hamiin may la wareegay waardiika ciidanka xoog dalka Soomaali ya la wareegay militariga mid u fiisay la wareegay dhalinyaradan ha ku bahayaan maduna salaad meeliseeni ciidankan wala meel ciidanka militariga ciidanka dawladda Itoobiya wala eelboorka baalisahayti ya may basuubiyaan hamiin midoomeyn ingiliin qaraxaasna wal habyaraato lanko dhalinyaro kumada wal yar qarax farreen ku deerin wal kale dhibaataan u deerin jiraan marka uu qarax la qarxiya inaan qarxinaba diyaar ma ana naftayna huraane in sidii dalkan may buu dalkan uu gudfa afarni may leeyahay nimankaas dhagar qabayaasha oo dalkan runtii dhibaatada jeeysidii inuu ugu dafacafan runtii ururka dhalinyarada al-shabaab iidan neebin degmadan ku jara mayn ereen hatu ka hor madii deegaankan iyo diban qabsadayeen dadka bulshada madii hanagadan eelbarda ku nagadan meeraayeen ururka dhalinyarada ka jartay lan ururka dhalinyarada ka jartay meeraayeen BSA ashaada dareeta dawladda fangma ka siyaasa Mareykanka may buuq qandaraas u qabteen markii isan ilgaar ee la siin ka haye dadka la afyaan runtii ma yihiin dadkuna laata hoos diiban ha dadka oo may leeyahay una ilgaar oo ka fiiriyaan nagadaasaan marka nacaabkaasna may sheenay dhalinyarada guud ahaan oo deegaankan xoogda shaqadii oo ku hayaan marka taasna runtii wal una hada geeka hal nin kuma hadnaga una lana ma wal una ka qasbano wal una runtii una diyaar ngano inuu hadii dalkan nabad ka helna inuu may buusan nolol raaxo leh una ka nooladaan laakiin hadii may buu una dhibaatadan ijid xirankan ishaqlaantan una haysata ka jarna haddana ninka daranta qarax iyo madax jibis haddana ninka darma in dalkan una roogana dalkan ka nooladana ya runtan aragni taasa ma go'aansanay inuu ku shaqeyna runtii dalkan walaa iska dagafadi koob ciidanka may buu koob militariyu koona may buu daraawishu dad hubaysan unina may go'aansanay inuu hubaysanayna lanka hubaysan meelusu seed intuna seena lanka hubaysan meelusu gal intuna galna lanka hubaysan meelusu ganyal galwa inuna galna taasa unina go'aansanay marka una hata guud ahaan deegaankan runtii amniga hata may buu may leeyahay kore boqolkiiba 99 wala kore maanta reer Bakool Masreer Hudur walbadana hadii aan kaasi taagno ku hadal lagu dhiibdaan maanta may raayis lafdabarta bulshadu simdooyinka dibatan maanta lafdabarta lama la faada baramana tirsan hooliyeeda hayto basaas tamaraan may raayis wala dhiibdaan si amniga wala dhiibdaan gooski shaqada door hadaas ambiyan ku dhiibdaan booska aw ku shaqeeyas walbadana horta hayto baanta saada la soo maanta may loo kasoo mudooyinka gadanba degmada Hudur muddo barakaad iyo ilbad ama ay dhafka dadka dhibaatay nagadi balaanta weyn iska taladay balaanta dadka oo nagilka bal kula maraan hanad ko hatta sida durjida furu dilka Hudur kulli balaan suran ila masakayna gibra suran illa iyo may disa iyo suran litisa dimatan to kale bedelaas iyo unigi haysat iyo urleta iyo may la raayis iditi haliyaas awlaaditi gooska shanaaytay shaqadii wali haydatan dawladda shaqadii amniga maanta oo xafiis oo qofka ka tirsanaysan markii amniga la qabo waxyaabo kale oo balaanka faa'iideeyay jirtay walbadan isfaa'iideey balan wali baa sabab hay'adda halon amal abtan amal balan soo bees farshaxan gaas barayaan sidoo guruun karaas barayaan harqaaman kalas baray toyaba habarati tababara badan la furay hay'ad badan oo maalgeli tii baratina tii si reediyay aan ku sii faa'iideeyay sida fornaalka biskuutin dooyo goost iyo hadhow iyo haliisayaan taasna ku shaqeeyay wali ku shaqeeyay amniga ku shaqeeyay shaqada tababarkaas oo noocyadaas amaleen ku shaqeeyay ciidamada qeyboojo shal duwan iyo waybayo ka dhiirideena sidoo garab ku helayaan bulshadu waybana maalin kasta ku howlgalayaan meelo dheer yoona ku goonta in cadowga iyo ku sifeeyaan guud ahaan gobolka Bakool yoona dhiirigelin iyo bogaadin ku helo shacabka iyo dawladda koonfur galbeed saraakiisha guutada sagaalaad runtii kulankaas oo ahaa kulankeedan farxad badan waxyaabo badan oo baahida guutada iyo dardargelinta la dagaalanka cadowga ka saabsan ayaan ku hadalay runtii eedan wali baan farxad galiyay waana
dhiirigelin nagasi intii madaxweynihii maamulka kuna fayda lawaaldan isla markaasna xaaladda dhabtay oo gobolka isla wadaagna sidii adowga gobolkan ku sifay lahay walbadan oo ismeel naga jaran si kastaba haato bulshada xarun goboleedka Bakool ee Xudur yayoona si qalbi furan handhow ay safarka nabadda ee toddobaadka qaaday ee madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen Sukuroogi magaala madaxda gobolka Bakool ee Xudur yoona saasato dowlad goboleedkan jeedi codsi kale oo ay ku fadayaan ama ay ku dalbadayaan in mashaariic kale oo horumarineed la keergali marka ujeedada aan rabno oo intaan oo dhan u marayno oo xarumaha u suubinayno u socono waxa waaye daadejinta nidaamka federalismka dadka inay helaan dawlad ayaga ay ku qanacsan yihiin oo raalli ka yihiin oo waxay rabaan u sheegan karaan oo baahidooda ay isla markiiba u gudbin karaan loogana jawaabayo insha Allah rabitaanka anagii asaga ahaa waa lagu guuleystay hadduu ilaahay yiraaho inta sidaan horey baan u sheegnay imaashaha anagii iyo soo noqoshadaanadii waa ka badan doontaa sida hadda safarkii ka horreeyey 3 habeen baan barinay kan 8 habeen baan joognaa hadda wixii ka dambeeyay time ma lahaanayno shirka golaha wasiirada inta lagu qabanayaa retreat baan inta ku qabsanaynaa muddaan inta ku shaqaynaynaa baraawaan tagaynaa waa lagu shaqaynayaa marka la tagayaa waa lagu shaqaynayaa saasa degmooyinka dhan loo gaarsiinayo dawladnimada sharafayna noo tahay waxa laaleeyo waxa dadkii reer Xudur inta qalbi wanaaga iyo soo dhaweynta iyo sharafta iyo karaamadii ay lahaayeen aad iyo aad ugu mahadsan yihiin anka dambeyntii gabagabeynay barnaamijkana gaarka hay ee uu ka fiiriyaan mashaariicdii horumarineed ee Xudur ku hirgeliyay dowlad goboleedka soo hogaamiyo madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ee Koonfur Galbeed dhamaan gobolada ka kooban Koonfur Galbeed yamay bas dhameystiran lanku dareemahay walqabadka dowladda iyadoo koranka hayta wacdiga dowlad jaceelka iyo saansaanka dowladnimo ee bulshada ka dhaqan guutaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya guutaan degmooyinka Koonfur Galbeed iyo hata ku xana qaadahay baahinta adeegyada dowladnimada